hay'adda Somali Relief oo fadhigeedu yahay magaalada Melbourne ee wadanka Australia ayaa deeq cunto waxay gaarsiisay dad Soomaaliyeed oo degan gobolkaasi Sanaag oo abaartu ay waxyeeleysay. Saciid Isxal Fiinde ayaa baran warka nooga soo diray arrintaana ku eegaya. Taakuleynta loogu talagalay dadka reer guuraaga ah oo ay saameysay abaartu oo ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada Baran ayaa waxaa soo gaarsiiyay raashin kala duwan una qaybisay qoysas gaaraya 80 qoys. hay'adda gurmad Somali Relief oo fadhigeedu yahay magaalada Melbourne ee wadanka Australia waxayna la kaashatay jamciyadda Salaam ee fadhigeedu yahay magaalada Baran. waxaana goobta ka hadlay raashinka lagu qaybiyay Sheikh Maxamed Cali Good oo ka socday hay'adda gurmadka Somali Relief sidoo kale maamulaha Salaam Cabdulus Ahmed Faarax. waxaa goobjoog ka ah sidoo kale duqa degmada Baran Cabdirasaaq Axmed Ciise. waxaa sidoo kale ka mahadceliyay deeqdan dadkii loo qaybshay raashinkan. waxaa deeqdan soo dirtay hay'adda magaceeda aad arkaysaan gurmad Somali Relief waa 5 qof oo Soomaaliyeed oo ku nool qaaradda Australia magaalada Melbourne oo isu tagay markay duruufta wadanka jirta arkeen. hay'addu sanad wali mayna gaadhin wali lama daahfurin laakiin dhibaatooyinka jira iyo abaaraha darteed ay ka damqatay jaaliyadii meesha joogtay dhex oraday wixii yaraa ay ka soo heshay baa ilaa 8 deegaan loo qaybiyay. maanta maalin axad ah bisha January 15 tahay waxaan joognaa deegaanka baadiyaha ee laga maamulo ama maamulka degmada Baran hoos yimaada. deeqda aanu halkan ku bixinayno waa 80 qoys oo deegaanka ah oo isaga yimid dadka reer baadiyaha xoolihii ka tabaaloobeen. maxaan ku raahdaa deeq loogu talagalay waxay ka kooban tahay maxaan ku raahdaa haaf bariisa haaf sonkora iyo haaf daqiiqa caag saliida iyo 3 kiilo timira. tamartii intaasay noqotay ilaahayga waaxidka waxaynu weydiisanaynaa in ilaahay abaarta naga dulqaado oo ilaahay roob iyo naxariis ina siiyo iyo nabad. dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dhaqaalaha haysta iyo dadka qurba joogtaaba duruuftii way jirtaa. sidii maxaan ku dhahaa dhaqanku ahaan jireen ilaahay naxariistiisu waa teeda roobka waqtigiisa wali lama gaarin. xoolihii dadka way ka baabeen dadka aad u tabaalaysan yihiin. dadkan loo soo gurmado duruufaysan dadka wax haysta ilaahay dartii xoolahooda ha u bixiyaan oo walaalahooda ku badbaadiyaan maadaama dawlad xoog leh ama maamul adag oo Soomaali ku midaysan tahay oo sidii way dhici jirtay marka abaar timaado hal mar la wada gurmada aanay jirin. marka wixii wax laga qaban karo ee awood ay noqoto laga gaabsan maayo ummadda islaamka meel ay joogaan u keenayaan. Australia oo garayno hal ku taalaba hadda ay ragga walaalaha uga yimaadeen oo dhul badan u soo mareen wixii sadaqa ee lala baxaa ha yaraadeen ama ha weynaadeen wax taray weey halka dollar lala baxaa ama dollarka lala baxaa meel buu gelaya. raashinka aad aragteen waa raashin hadda mudahayn kara waa 25 kiilo bariisa 25 kiilo daqiiqa iyo 25 kiilo sonkora iyo caagada saliida ee 3 litir iyo timirta oo ah 3 kiilo. waa raashin aad u qiimo badan ilaahay ajra ka siiyay xasanaad intii jeebkooda ka soo bixisay intii u hadashay intii u saciiday intii aawilkeeda gashay 80 qof baa la siinaya laakiin waxa dadku u aragtaa 80 qoys 80 qoys waxa halka marti ah in kale oo timi oo ku soo dul dhacday iyaga laftooda ilaahay idinkii qadi maayaan waxay diyaar u yihiin la qaybsadaan. waxaan ma celinayaa tiimkan gurmad Somali Relief oo sida la noo sheegay maxaan ku raahdaa tiimkaas 5 qof ka kooban oo dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah waxa ay ka soo qaadaan rabay inay gaarsiiyaan waa isxilqaan waa dad Soomaaliyeed oo iyagu isxilqaamay waxa ay soo ururiyaan jeebkooda iyo walaalood ka soo qaadaan bay rabaan inay gaarsiiyaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa deeqda maanta anna wuxuu ogeyn iyo maxaan ku raahdaa xilka weyn iyo mas'uuliyadda weyn ee naga furteen oo ay dadkiyagii iyo deegaankayagii ay soo gaarsiiyeen. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. hay'adda walaalaheena waxay noo keentay meel walba wax ka soo taabtay ilaahay ha tabantaa ilaahay ha tabantaa ilaahay ka tabantaa waxdan ilaahay ha soo daalinka ilaahay ha ka qabto wax khayr qaba ilaahay ha ugu jawaabo. mahad ilaahay bas u sugnaatay ilaahay waa mahad leh. waxaan ugu mahadiyo way ugu celinaa dadka ka soo shaqeeyay ilaa iyo heer degmo ilaa iyo hadii maayo jaaliyada soo dirtay ayaan ugu mahad celinaa. intaas waxa weeye dadka meesha jooga sidaa ay ayaga ugu keenteen ugu shaqaysteen waad ku fiican tihiin. waxaan mahadin maayo jazakallahu khayr. Saciid Isxal Fiinde Somali Cable Baran.